dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay soo badanayaan furimaha ay dagaaladu uga socdaan ururka Al-Shabaab si ka duwan kacdoonnadii hore uga dhacay waddanka ee looga soo horjeeday ururka Al-Shabaab. Howlgalladan ayaa ka dambeeyey weeraro ay ururka Al-Shabaab bilihii ugu dambeeyey ka geysteen maamul goboleedyada Galmudug, gaar ahaan deegaanka Baxdo, gudaha Itoobiya iyo weliba magaalada Muqdisho. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna sheegay inuu la yimid istiraatiijiyo cusub oo lagula dagaalamayo ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab waxay ka jawaabeen istiraatiijiyada madaxweynaha waxayna sheegeen in weerarkoodii Hotel Xayaat ay ku qaadeen bishii August uu jawaab u ahaa qorshaha madaxweynaha ee iyaga ka dhanka ah. Kamaal Daahir Xasan Guutaale waa la taliyaha arrimaha amniga ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. shacabka Soomaaliyeed mar walba diyaar u ahaa nimankan inuu iska dhacsho isku caqiido maahan isku diinta la inxiraafiyey iyo dhan ay isaga mid yihiin ma jirto. laakiin waxa isbedelay oo xukuumadda cusub iyo madaxweynaha wasaaruhu ay la yimaadeen in bulshada Soomaaliyeed ay gubaabiyaan, ay dhiirigeliyaan, ay runtii garab istaagaan markii ay go'aansadeen inay iska kacshaan ayana ugu baaqeen garabna istaageen. hadda waxa isbedelay waxa weeyaan shacabka Soomaaliyeed marka hore diyaar u ahaa, dowladda Soomaaliyeed oo gubaabisay, ballan qaad inay garab istaagto, garabna istaagtay. waa intaas oo isku daray, waa dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa shacabkeeda xuduudiisa. waxa kaliya oo dal lagu xoray karana waa shacabka wada dhan. waxaan aaminsanahay istiraatiijiyada maanta aan haysano inay guulaysanayso maadaama ay tahay mid shacabkii haysata. dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in howlgallada wadajirka ah ee ay wadaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo tasiilaad ay u fidinayaan ciidamada midowda Afrika ee ATMIS iyo kuwa caalamiga ee isbahaysiga la leh dowladda Soomaaliya ay in ka badan 40 tuulo iyo deegaan ka xoreeyeen ururka Al-Shabaab. mar kale Kamaal Daahir Xasan: weli shabaab ma dhicin in ilaa 6-7 furun laga weeraro. ma dhicin in bulsho Soomaaliyeed oo furun walba ay taagan tahay 700,000-1,500 furumaha qaar. furunta ugu yar 500 oo qof oo Soomaaliyeed musdalciina taagan oo diyaar u ah inay cadow iska celiyaan. marka anaga waxaan aaminsanahay cadowgu waa cadow daciifa, waa cadow aanan awoodin inuu intaasoo furun ka dagaalamo, waa cadow aanan ku aadin shacabka Soomaaliyeed inuu iska caabiyo, waa cadow nafta kasii baxayso maraya meeshii ay mari jireen 2005 iyo 2006 hogaamiye kooxeedyadii. anigu waxay ila tahay waa bilowgii dhammaadkoodii waaye. ilaahay idankiisna in laga wada saarayo ilaa inta ay ku jiraan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya meelaha ay uga jiraan. howlgalladan militari oo ay taageerayaan dadka deegaanku waxaa soo dhoweeyey qaybo badan oo ka mida bulshada oo ay ku jiraan siyaasiyiin iyo odayaal dhaqan oo lagu arkayo furimaha hore ee dagaalka. sidoo kale waxaa soo dhoweeyey taliyii hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Generaal Daahir Aadan Cilmi Indhaqarsho. dagaalkan hadda socda waxaan dhihi karaa waa wax loo baahna oo waqtigii ku habboonaa yimid. marar badan dowladda iyo shacabka isla socon baa dagaalo badan dhaceen. dagaaladaas badan oo shacabkuna mar goonihiisa u bilaabay, dowladduna mar goonihiisa u bilowday, waxay keeni kareen always dhammaystir la'aan. maanta shacbigii iyo dowladdii oo isla socda oo labaduba wada socdo, laakiin hadda aan shacabka o dhan ahayn, degmooyin khaasa ah hadday bilaabeen, waanoo rajaynaya degmooyin kale ka dhiman anay ku biiraan. waxaan u arkaa guusha ugu weyn ee Al-Shabaab looga adkaan karo. kacdoonnada iyo dagaalada ay ku jiraan dadka iskood isku abaabula ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab ayaan ahayn kuwa ku cusub waddanka. is-abaabulka iyo inay dadku ka soo horjeestaan dalabyada uga imanaya Al-Shabaab ayaa qaarkood lagu arkay markii ugu horreysay galbeedka magaalada Kismaayo in ka badan 10 sano ka hor. xilligaasi oo qaar ka mid ah dadka deegaanku ay diideen inay xoolo iyo hub siiyaan ururka Al-Shabaab. sidaasi si la mid ah sanadihii 2013 ilaa 2015 waxaa qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose ka dhacayay dagaallo ay dadka deegaanku kaga soo horjeesteen ururka Al-Shabaab. kacdoonka xilligaasi ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose waxaa saraakiisha hogaaminaysay ka mid ahaa guddoomiyihii degmada Marka ee xilligaasi Maxamed Cismaan Cali oo ku magac dheer Yariiso. xilligan waa xogayaha dowladda hoose ee magaalada Marka. waxaa noogu qasbay dagaaladaas waxay ahaayeen gumaad badan oo ay ku hayeen shacabka deegaanka. waxay dileen dad badan oo door nabadoon ah, odayaal dhaqameed badan ay dileen, dhanaane 2 oday geysteen, 4 oday dhanaane ay ku dileen. kadib haddana waxay dileen dhalinyaro saliini iska socda geele ah ayay dileen, xoolahayna way ka qaadeen. kadib haddana meel abuutay la yidhaahdo ayay tageen, xoolihii ay dhaceen. intaas waa u dulqaadanay. wax dowlad ah oo noo soo gurmada cawaadkeen iyo raadiyaashaa ka hadalnay.
aniga markaas waxaan ahaa guddoomiyaha degmada marka allah u naxariisto cabdullaahi cali axmed waafon wuxuu ahaa guddoomiyaha lambar 50 marka kadib aniga iyo labadaan guddoomiye go'aan cadan qaadanay deegaankii aan kicinay deegaankii hubkiis qaatay sidii aan shabaab ula dagaalanay waxay naga gubeen 28 tuulo laga bilaabo Garshiine Cabbanaane Bisley Daawud Buul Xabashey Buul Fiiley Buul Barrow Buul Siidow Nagaadweyne Abuutey ilaa adiga lambar 50 Buul Caashi ayay gumaadeen. marka maxay idinku maageen oo ay guryaha iyo tuulooyinka idinka gubeen dadkana idinka laayeen maxay idinku maageen? waxay noo maageen sakawaad xoog ah oo meel ay ujeedaan ogeen shacabkii waa loo imaanaa geeleyda xoololeyda lacag oo meel ay ujeedo iyo meel kale ay eena qabiil ay usaarayeen intaan kun aniga rabnaa mar waxa la leeyahay hubaad gedaysiin 100 qori 50 qori 60 qori 200 qori la soo saaraa marka 100 qori iyo hubkaas markay xoog ku qaadanayaan aragnay annaga waxa go'aansanay in annaga deegaanaha hubka gadano tiyaan ugu hornimid wax markaas ay go'aansadeen gaal baatiin rid baatiin hadad zakaadka diideen taakuleen shabaab diideen dhaqaalihii ay diideen waa idin dhaceena xabadeena intaas ay ka bilaabatay Haarunow. dagaalkaasi muxuu ku dhamaaday? الآن وإسور فدنا الآن وإسور تاجنا هاي نمبر 50 إلا معقوسة إلا نمبر 6 إيريداس هذا حروة إلا بورحاشي كل بدنا كسفيني وحد قال كنا سكنا يجيب مركو ورج بدنا سيود أينو دكانو ديانكا إلا بدنا خبرني وأسكت أنا ديانكا بقالمي إذا ما ديانكا أو أن رصاص طول أن ديانكا حوله هذا يو غير قد كي قلي أي أستين أي رصاص وقلاين حتى ساعة أنا أقول لك الآن أنا شباب إيش مني دراتي أنا يوافق وحينو جونديان أنا يتأيد مجرن وافق وقرح على البيرسي ويني ديانك وحكى جوان الشباب أنا الآن إذا كان وحلو يقانا مع سليمان إذا ديان الله يقان وقارته وحلو بحي إلى الشباب وقارسان. is-abaabulada kale ee dadka deegaanku ay sameeyeen si weyn uga hadleen warbaahinta waxaa ka mid ahaa kii ay sameeyeen qaar ka mid ah dadka deegaanka ee gobolka Shabeellada Dhexe horaantii 2018 xilligaasi oo ay soo baxeen maleeshiyaadka la magac baxay Macawisley. kacdoonka Shabeellada Dhexe waxa uu ahaa mid sida kan Shabeellada Hoose ay kali ku ahaayeen dadka deegaanka marka ay noqoto dagaalka lala gelay ururka Al-Shabaab waxayna ka dhacayeen deegaanada ku hareeraysan iyo inta u dhaxaysa magaalooyinka Aadan Yabaal iyo Cadale. si gaar ah dagaalkaasi waxaa hormood ugu ahaa Hibaad Cali Dasar oo ka mid ahaa dadka deegaanka qoyskiisana la deganaa tuulada lagu magacaabo Guulane oo u dhow magaalada Aadan Yabaal. Hibaad Cali Dasar waxa uu diiday dalab uga yimid ururka Al-Shabaab. dalabkaasi waxa uu ahaa iyo sida uu kacdoonku ku bilowday waxa galka baarista uga waramay Mukhtaar Maxamed Maxamuud Kaadheeri gudoomiye ku-xigeenka degmada Cadale oo ay siqaaneen Hibaad Cali Dasar. waxaa la weydiiyay cunugkiisa oo muxuu ahay la rabo in la askareeyo oo lagu beeriyo raggaas oday waa u cuntami weyday adigu dood dheer ka bacdi duurkuu galay asagii xoolihiisa ilmihiisa carruurtiisa duurkay galeen mar alaala markay galeen waa la weeraray haddii la weeraray beertii iyo waa laga gubay badar iila waa laga soo qaatay intaas loogama harina waa la dabagalay markii la dabagalay haddana waa la weeraray haddii la weeraray ari yarow lahay iyo muxuu ahay geel lahu lahay waa laga dhacay waa soo cararay wuxuu yimiday meel la yidhaahdo degmo Cadale oo aan gudoomiye xagga arrimaha bulshada ka ahay meeshaas ayuu wuxuu ka abaabulay inuu haddana dagaal uu galo oo nimankii iyaga ahay oo la diro shabaab inuu la diro abaabulay rag badan asiga kaliya ma ahayn rag badanaa lasoo barakacay oo ilaa ay hadda degan igu qaxootiya degmo Cadale markaas ka bacdi adiga dhowr weerar ay qaadeen rag badan ay ku soo dileen qoryo ku soo furteen. waxaan rabaa wax yar inaan dib u laabto wiilka ay doonayeen inay ka kaxaystaan shabaabku isaga mise jir buu ahaa? waa yaray adigu 12 jir meelahaas oo cunug yar oo ahay waaba la soo cunug waa la tusaba waa wuxuu ahay wuxuu markii dambe degmada Cadale la soo galay cunug aad u yar cunug. sababta uu doonayay wiilkan yar maxay ahayd? ala sabab kale maaha dadka dhamay ka arushan carruurta dugsiga in inta la qaado muxuu ahay la tababaro ayaan la soo haayo muxuu ahay goorkaas ka bacdi la soo celsho ama xataa maanka inta laga hado waxa isqarxiyo dhan waa carruur
marka danaha ay ka lahaayeen kulley waa inay un xabad ay u wadaan amba isqarxiyo amba si toos xabad u rideen waxaas unbay u wadaan ma hadda dana kaloo gooniya kama lahayn sida dhacdaba oo haddaba ilmo badan saasay ugu maqan yihiin rag intee leeg buu helay marka oo garabkiisa galay wallahi raggu ma aysan badnayn ragga cid kale maba uusan helinba raggii lasoo qaxbisay ahaayeen maahina hadda meesha aan joognana rag kale kama uusan helinin adiga rag 40 50 60 meelahaasay ahaayeen markasuu dagaal aadi tago wuxuu wadaa in yaroo 10 15 16 ugu badan 16 meelahaasoo wadaa maya xataa ragga wada ma wada karin marka annaguna ka degmahaan waxaan samayn jirnay markay ay dagaal ay soo galaan dhexaan uga hortegi jirna markaasaan waxaan ka reebi jirnay cadowgu mar allaala markuu ay wax soo hadleeyaan oo wax soo dilaan way soo dabageli jireen annaguna markaasaan intaan dabagalna intaan ka hortagnan maxuu ahayn ka reebi jirna intaas marka samayn jirna anagu ka dowlad ahaan iyo ka degmahaan ugu dambayn halkee bay ka heleen marka way ku dileen walaa ugu dambayn waxay ka heleen waxaa waaye ninkaanu habeenkaas qalad baa dhacay waxaa lagu dhaweeyey baawur ewel lugtiisa oo isticmaali jiray habeenkaas baawur gaari technicaha lagu dhaweeyey dadkuna waa taqaanaa nimankan shabaabka waxaa waaye waxay leeyihiin jaajuusiin badan ay leeyihiin waa la ogaaday baawurka mar allaala markii lagu dhaweeyey uu ka soo laabtay waa la fahmay mar allaala marka iyagu luga iska bilaabeen ayaa gadaalna laga dabagalay horena ciidana la dalbaday asaa muxuu hayaa dhexda la gashtaba baabuurkan tiknikada ah ee dhaweynaya ma baabuur ciidanku leeyahayba maxay dagaalka ula geli waayeen wallahi leeyahay baabuurku baabuur dowladda militariga uu leeyahay uu ahay meesha hadda iyagu ay ka soo dagaalamayaan baabuur intuu taga kama maba kasoo faka kariyaba ninkaanu asigaa muxuu ahay nin aad u adag ahay maahina macal ragga oo wato meesha hadda uu tago 70 kilomitr 80 kilomitr inta shabaab lagu dhex socdo muxuu ahay haddii weerar guud la galayo waa guurida laakiin hal gaari ama laba gaari inta 80 kilomitr ay shabaab ay ku socdaan inay kasoo fakadaan ma suurtagalba maahaba waa gartay marka meesha baabuurtaas ciidanku aysan hawaysan karin isagu sidee buu ku hawaystay kula tahay maxaa keenay inuu isagu hawaysto wallahi waxaa keena waa taqaanaa bini aadamku hadduu ciid badan oo aruuriyo qofku waxaa waaye marbaa qalbiga waxay ka gelaysaa middan waxaaba dhaantaba noloshaa dhimashaa dhaantaa ragga qaarkiis xaraab intaas oo geyaha marka waxaan aaminsanahay ninkaas ciilka la baday dartiis inuu muxuu ahay meel aan baawur uusan geli karin oo technica iyo ciida dowlad uusan hawaysan karin inuu isagoo keligiisa amba 15 nin wata amba 8 nin wata amba 9 nin wata inuu aado kulley ninkaas ciil baa badan isleeyahay cid ku taageeri jirtay dagaalka miyaa jirtay 2018 mise rasaasta iyo qoryaha iyo wax walba keligood unbaa ku jiray hawsha wallahi wax laga taageeri jiray waxaa ka jirta rasaastaas xoogay qoryaho lagu taageerana way jiraan laakiin hadda taageero badan oo dowladda ay muxuu ahay ay garab istaag la taaba karo ay samaysa ma jirto laakiin way jiraan rasaas la siiyey iyo qori la siiyey way jiraan jenaraal daahir aadan cilmi indhaqarsho oo xilliga uu socday kacdoonka shabeellada dhexe ahaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaan weydiiyey waxa uu kacdoonkaasi hore kaga duwanaa kan xilligan socda horta dowlad lama socon dadka shacabka markay kaceen dowladuna sidii loo baahnaa uma taakuleen masalan haddaan misaal usoo qaarto hirshabeelle mashakiladii ka dhacday mashakiladii touching ah oo qofka biniaadanka taabanaysa bay ka kacday haddaa xasuusto oday soomaaliya oo xoolihiisa la joogtaa wiil yaroo 8 jira bay al-shabaab waxay yidhahdeen dagaalkanu qaadanayna odaygu uu la hadlay waxay wiilkaas 8 jirka ay dagaal ma gaarin kuwa way qaata maya wiilkaan qaadanayna wiilkaygaan anagoo nool wallaha la qaadanay haddii wax kasta dhacdo hor dagaalka saasuu ku bilowday arrin touchin ah oo shacbi weynihii meesha deganaa la xanuunsaday markay arkeen war wiilkaa yarka ah xagee waqti dagaal buu gaaray aad baa lagu heliyey aad iyo aad baa lagu heliyey anugu waqtigaas waxaan ahaa taliya ciidanka waxaan isku taxallujiyey aad isku dayay inaan caawino inta suurtagalka waxaa la furay tashwiish ah markiiba aa bilowday in la yidhaaho haddaa kuwa ciddaad tawrisin hadhowti dad kale leynahayaan hadhowti meelo kale aadahayaan war dadkaa marka hore waa hubaysnaa dadna may leynayn mutahay ilaa hadda qoryo ma siinayna ragga muqdishadaba waa joogeen waa hubaysnaaye laakiin tashwiishkaasa wuxuu noqday dowladdii dib bay uga gaabsatay way ka noqotay iyadoo ka baqday criticism aan anaga lahayn oo cilmi ku fadhin ummadda soomaaliyeed haaruun kulligeed waa hubaysan tahay dalkaas soomaaliyeed markuu naga helo khasab bay ku tahay dowlad kastoo timaada ama joogta ama soo noqota in dalkan lagu sameeyo TDR dib hubka in laga qaado
hadda laakiin looma baahna marka hadda waxay u baahan yihiin dowladda ma difaaci karto ayaga u baahan isdifaac marka problemka naga qabsaday waxay ahayd nimankaas kuwii Buurburg ka bilowday kuwii Hirshabelle ka bilowday kuwii Marka ka bilowday kuwii magaalada Qasax Dheer ka bilowday waliba Qasax Dheer hadda xasuusid dhowr boqol oo tuulo lagu gubay shacbigu markay iska celiyeen dhowr boqol oo tuulo laakiin dowladdu uma gurman kaasa wuxuu keenay way bajareen nimankii shacabkii waa moraalka ka xumaaday lama caawinin maanta dowladdu determined prime minister hadalkiisii madaxweyne hadalkiisii markaa fiir dowladdu waxa ka dhaba inay ilaa tudcinta ay dadka caawinto haddii ilaa meesha ugu dambaysa awoodda dowladdu ay ku caawinto anu waxaan aaminsan inuu guulaysanay talada ugu dambayseed soo jeedinayso iyo ciidanka Soomaalidu iyaga laftigoodu deesay sidaas sheegtay inkastoo tiradoodu yar tahay tirada lagu kordhin karo ku diyaar garoobi karaan waddankan ay ku wada qabsan karaan ciidanka Soomaalidu laba function buu u baahan yahay oo very important ah labadaas oo ah waa mid waa inuu ciidanku dagaalka wado oo dalka xoreeyo at the same time ciidanku waa inuu noqdo ciidan discipline iyo sharci kala dambeyn leh labada in la isku garab wadaan raba waqti hadii kale askartu dhibaato ay geysan kartaa shacabka markay u tagto ayadoo lahayn disciplineki iyo ismaqalki iyo kala dambeyntii markay inta ka fogaato caasimada tagto meel duur oo aan dowlad joogin wax kasta ka dhici kara askari waa taqaana waan soo waana aqoon badan marka dowladda waxaa laga rabaa inay labadaas function ay aad xoog u saarto ciidan ku filan dowladdu ma haysato dalka marka runta loo hadlo ciidan ku filan ma haysato dowladdu waa inay si dhaqsiyo leh ciidan u qorto oo la dhiso qaybaha dowladda Soomaalida wasaaradda gaashaandhigga taliyaha xoogu waa inay mas'uul ka noqdaan ayagu responsibility loo daaya gobolka iyo sida la isku xukumay dagaalka ciidan sida loo sameeyay iyo sida ciidanku isku taakuleen karo ayaga waa in looga dambeeya politicianku markay soo jeedintaas ciidanku soo saaro waa inay politicianku aqbalaan oo ku taageeraan horaantii sanadkii horena waxaa sidoo kale kacdoon dadka deegaanku ay ku lug leeyihiin uu ka dhacay deegaamada u dhow Leego Yaaqbari Weyne iyo Baladul Amiin oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose inkastoo al-shabaab ay markiiba cadaadis saareen bilihii Janaayo iyo Juun ee sanadkan ayaa sidoo kale al-shabaab ay weerar ku qaadeen deegaamada u dhow magaalada Baxdo ee maamul goboleedka Galmudug weerarkaasi oo si weyn ay isaga caabiyeen dadka deegaanku maleeshiya badanna looga dilay ururka al-shabaab kadib dagaalkii bishii Juun madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bogaadiyay istifaacidda dadweynaha reer Baxdo waxaana uu sheegay in 10 lama ilaawaan ah u dhigeen ururka al-shabaab sida uu hadalka u dhigay mas'uuliyiinta deegaanka Galmudug waxay iska caabintaas ku tilmaameen mid taariikhi ah 20kii bishii Juulaay ee sanadkan al-shabaab waxay weerar ka geysteen gudaha Itoobiya al-shabaab sidoo kale waxay weerareen deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan oo ay ku jirto magaalada Matabaan al-shabaab waxay sidoo kale weerareen deegaanada Bukura iyo Teedaan ee gobolka Hiiraan iyo Cada Kibir iyo Maarsamage oo ka tirsan gobolka Galguduud waxayna weeraradaas ku burburiyeen ceelashii biyaha iyo tasiilaad kale sida ay sheegeen dadka deegaanku isla gobolka Hiiraan al-shabaab waxay weerar u geysteen baabuur sida cunto iyaga oo gubay isla markaana dilay in ka badan 20 qof weerarkaasi oo la aaminsan yahay inuu aargudasho u ahaa kacdoonka dadka gobolka Hiiraan ciidanka Soomaaliya waxay dagaalka wadaan xilli ay socdaan dadaaladii iyaga laftigooda dib loogu soo dhisi lahaa si ay dhabarka ugu ritaan dhammaan mas'uuliyadaha amni ee dalka iyo xilli aysan dagaaladu si isku mid ah uga soconin guud ahaan waddanka diyaar garowga gobolada iyo dadka deegaankana aad moodid inuu kala horeeyo cabsida haddaba jirta ayaa ah intee in la-eg ayay sii socon karaan howlgalladan dowladda Soomaaliya si diyaar ma u tahay inay hubsato in laga gungaaro howlgalladan la taliyaha amniga ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Kamaal Daahir Xasan bilow fiican hayna laakiin waxaan aaminsanahay labada saddexda afarta bilo soo socota ayaan waxaan aaminsanahay shacabka Soomaaliyeed iyo cududooda waa dad aragtay ama la socoto maalin kasta waxaan magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka waaweyn ku aragnaa beelo cusub isabaabulaya waxaan aragnaa xildhibaano isabaabulaya waxaan aragnaa saraakiil isabaabulaya waxaan haween isabaabulaya waxaan dhalinyaro isabaabulaysa maanta waxa furan yani Galguduud iyo Koonfurta Mudug iyo Hiiraan iyo Midshabeelle intaba waxa ka socda furumo waaweyn waxaa noo sii dhiman Jubbooyinka Gado Baay Bakool iyo Shabeellada Hoose intaba in ayadana laga furo marka wali waxaan aaminsanahay 40-50 isma gaarin marka full potential way gaari doonaa waana abaabulka iyo furumaha cusub iyo dhan walba way uga bilowday marka laga soo afjari doono insha Allah ta'ala
ka sokow maamul goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug waxaa dhaqdhaqaaqyo milatari ay ka socdaan maamul goboleedka koonfur galbeed maamul goboleedka jubbalandna waxay sheegeen inay u diyaargaroobeen inay dagaalka ka qayb galaan barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgeliyo